saraakiil iyo saraakiil xigeen ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo tababar loo soo xiray. Munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay xerada tababarka ciidanka xoogga dalka ee Generaal Dhigabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay ku-xigeenka madaxa hoggaanka tababarka, taliyaha dugsiga Generaal Dhigabadan, madaxa tababarka UTM, macallimiin iyo saraakiil kale. Ugu horreyn waxaa goobta hadal kooban ka jeediyay madaxa waaxda tababarka ee UTM Cornel Lodora, isagoona macallimiintii loo tababaray laylinta ciidanka xoogga kula dardaarmay in ay sii gudbiyaan shaqadii la baray. I would like first of all recognize I'm impressed by your performance. marka hore rabaa inaan aad idinkaga mahadceliyo wixii aad soo bandhigteen. I'm very grateful, especially to the two colonels. They were always observing, making comments, and making recommendations for improve this course. waxaan aad ugu faraxsanahay labada korneel ee koorsada ku jiray ee la socday dhaqdhaqaaqi talooyin fiican ka bixiyay soo jeedin wanaagsan la sameeyay. ku-xigeenka madaxa hoggaanka tababarka Cornel Cabdullaahi Yuusuf Cabdulle ayaa saraakiisha iyo saraakiil xigeenada tababarka dhamaystay ku bogaadiyay firfircoonida ay muujiyeen, isagoona macallimiinta tababarka bixinaysay ku ammaanay doorka wanaagsan ee ay ka qaadanayaan horumarinta ciidanka xoogga dalka. waxaan la dardaarmayaa macallimiinta koorsada ka soo baxday. macallimiinta waxaan leeyahay aqoontiina sii gudbiya, waxaa diyaar lala sii yahay aqoontiina in la sii kordhiyo markasta, hadday gudo noqotay hadday dibad noqoto. ugu dambayn taliyaha dugsiga tababarka Generaal Dhigabadan Sarreeye Guuto Maxamed Maxamuud Sanay oo hadal ka jeediyay munaasabadaasi ayaa ka hadlay ahmiyadda uu tababarkan u leeyahay. khibradda iyo waayo aragnimada aad meesha ka kororsateen inayna idinku ekaanin idinka ee aad gaarsiisiin kuwa u baahan ee mataqaanaa frontiga jiro iyo kuwa qaybaha jiro. kulli waxaa la rabaa in basiga hoos laga soo dhiso si loo gaaro mustaqbalka maalinta dhididkaaga maalintuu baxo waxaad ku fakataa maalinta dagaalka. gabagabada munaasabadda ayaa shahaadooyin la guddoonsiiyey saraakiisha iyo saraakiil xigeenada tababarku u soo dhammaaday ee kaalmaha hore ka galay tababarka.